asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waxaana wanaagsan saaxiibyaal soo dhowaada adduunka sidiisa batatanba waa qiso socota waa cajiib waxyaabo badan oodan filanayn ayaa kaa soo horbaxaya waxyaabo badan oo cajiib ayaa kaa soo horbaxaya waxyaabo aada filan ayaa mararka qaar la kulmaysaa hadda goor waxaa jirtay muuqaalan soo gudbiyey 4 sano ka hor oo ahaa nin hal maalin furay 5 naagood nin furay 5 naagood hal maalin ay wuxuu furay 5 naagood kaasu nin buu ahaa muuqaal meeshaan aan daawanayay oo sheekh cabdiqaadir cali sheekhan baa wuxuu ka sheekeynayay naag 4 nin ay qabeen wadamada Yurubta ay ka dhacday waliba hal wadan ma ay deganaa meelo ka duwan ay degan afartuba 4 wadan ay kala duwan ay degan yihiin afarta ninba midba mar ay xalisaa nin walba si gooni ay u xalisaa kuwa kale macnaa afarta ninba xaasas ay leeyihiin laakiin midaan waa u gooniyo u qarsanta macnaha marka sheekha markuu ka sheekeynayay runtii aad bi cajiib u tahay waxa uu yiri waxa la weydiiyay yiri sidoo kala dabartaa markaas tiriyay yiri nin walba waqtigiisan hawshiisa u qabtaa qisadu sidee u dhacday iyo sidee tahay iyo waxa dhan aan isla wada daawano insha Allah taala qisadii ugu cajiibka waxay qisadii Talyaaniga ugu qabsatay naag Soomaaliyad ah oo 4 nin qabtamay mise iyagoo ay qabaan 4 ay qabaan mid Denmark degan mid London degan iyo 2 Talyaaniga degan bal habaar qabto sidee bay u kala ilaalin jirtay markii aanu wareysanayna waxaan ogaanay inay sanado sidaa ku waday حقنا ay ka dhureysay حقنا ay ka dhureysay حقنا ay ka dhureysay حقنا ay ka dhureysay lacagtu dhinac walba kaga socotay ragana ay kala farsameyn jirtay ilaahay muxuu qadaray markuu ilaahay wax fashilinayo oo agooni labadii ba diyaarad isugu yimi kii Denmark ka soo duulay iyo kii London ka soo duulay ويس ورستينون وريا حاجات كل سعتايو حاجات كل سعتايو نيمول وحده دقيقة بعد إذا ما كل سعتايو قرب ماشي كل قبايو وكانوا مثلنا هل كان دنمارك بمدي وجو أصلا كان مد لندن وجو أصلا تانينا وقرصون تي جور قرين تجور نب كاستيل هذا سيد أوذا فديانو بتلفون بس صادعي وأنا سنع فديان تلفونكي waxa ka soo booday telefoonada imka smart ka bay haayeen dan ka hadal ma aha kii Sheekh Cabdirashiid sheegay ma ku ilaab salaaxa qof markuu soo hadlo waxa soo booday sawirkiisa soo maaha sawirkeedii waa soo booday bul kii kalena ishiisa way ku dhacday warstay wax u jiraan buu yaa gabadhan kula soo hadlaysa waa xaaskaygii xaaskaagii baa haa yaana waa xaaskaygii buu war maxaad ku hadlaysaa soo xaaskaagii ma aha haa yaana waa xaaskaygii wuxuu soo saaray sawirkiisna sawirkuu soo saaray waa la isdhinac dhigay waa isku sawirkii arrintii baa naloo keenay bal naagtu dhiiranaanteeda may oranin arintu waa labadan uune laba kala jirabeed yaa kanan ilmaha u hayo waa mid oo magaalo kale oo Milaan la yiraahdo jooga ka kalena magaalo Heblaayo jooga haye wal isugu wada yeera wixii baan isugu wada yeernay bal waanu wareysanay marka awal waxaanu maqri jirnay un rag wax qarqariye fajicsadina ugu weyneed bay ahayd naag 4 ay qabaan naasideedu kala ilaalin jirtay habaar qabtooy waxa jira kan waqti gaaran u yeera kan waqti gaaran u yeera labadan magaalada joogmad waqti gaaran aan shaqadiisa u qabta sidaas ku waday bayt sidaas ku waday ha markaasaanu wareysanay midba taariikhdu guursaday dib baan u wareysanay hadda iyo hor leh على كل حال markii dambe
kii u horreeyay baan adeerka adun ba meherkaagu sax yahay war idinkuna ka huleela na adiguna ilaahay u toobadkeen dambi aanan weliga iyo maqal noociisa ayaad ku dhacday intaasana kaga baxaya ilaahay khayrka hayna waafajiyo waxaan rajeynayaa qisadan inaad wax uun ka faa'iiday hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa inoo muuqaalka xigo insha allahu tacaala